higankeni iyo qawlihi guud iyo guryeynti waa horseedaheni dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wargeliyaheni jangoynta halkan aan joognaa waa degmadii War Cimraan annagoo haddaan nahay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta oo gudanayna waajibaadkii qaran oo halkan aan ka saarayno Toonbaleyn haddana uu mashruucaasi ku dhow yahay gabagabo ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maxamed Nafaqo waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada War Cimraan iyo ku-xigeenkeeda iyo xooghayaheeda waxaan u mahadnaqayaa cuqaasha heer War Cimraan ee sida wacan noola shaqeeyay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha heer War Cimraan ee dhagonugeylka iyo horumarka jecel ayaan u mahadnaqayaa sidii wanaagsaneed ay nala shaqeeyeen muddadan aan ku sugnayn hawshan ku sugnayn waxa weeyaan mataqaana qof walba uu jeclaa inuu waxa weeyaan mataqaana degmadiisa wax u noqoto War Cimraan waxaan leeyahay maanta waxay la tartamaysaa degmooyinkii eeda ahaa 6 gobol bay la tartamaysaa maanta waxa weeyaan kaftanka cid degmo kale oo kaftanka inaga helaysaa ma jirto waxa weeyaan waxaan ku faano ayaa halkan inooga soo baxay dhammaan waxaan ka wada saarnay sarfeeyadii magaalada halkan waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa ciidanka booliiska ciidanka sida waxay nabadgelyada u sugeen muddada halkan ku joognay waxaan halkan ka marxaati furaynaa in heer War Cimraan hal qof aanu naga hor iman intii aan hawsha wadnay qof walba oo ku qanacsanaa hawsha aan wadno iyo qaabka u dhacayso oo ku qanacsanaa kuna kalsoonaa waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dhammaan qaranka dhan u soo hoyatay horay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha taliyaha ciidanka War Cimraan ayaan salaamayaa waxaan kala halkan aan mahad gaara iska leh bulshada ku dhaqan magaalada War Cimraan oo iyaguna si fiican noogu soo dhaweeyay sarfeeyinka maanta halka laga saarayo oo si fiican oo la shaqeynayay sida markii hore ahayd magaaladu iyo maanta sida ay tahay magaaladu way kala duwan tahay markaan imanay magaalada wax wadooyina may lahayn maanta anadu wada arkaya wadooyinkan uga saarnay iyo quruxda ay leedahay marka waxaan oran lahaa bulshada ku nool magaalada inay ilaashadaan oo halkay sarfeeyinka iyo wadada ay ka soo baxday inaanay halkii aan ooda ka qaadnay inaanay dib ugu soo celin baan oran lahaa aad iyo aadna wada mahadsan